waa magaca ugu weyn kooxaha dambi baarista waxayna baartaa dambiyada waaweyn iyadoo waxqabadkeedu uu yahay mid aad u sareeyo. kooxdan dambi baarista ahi waxaa la aasaasay qarnigii la soo dhaafay. haddii aad maqasho FBI waxaa kugu soo dhacayo ciidan khaas ah oo tababaran oo leh xirfad iyo nidaam u gaar ah. kooxdani waxay leedahay nidaamyo kala duwan iyo sidoo kale urur badan. ururada ay leedahay waxaa ka mid ah CIA-da. kooxdani waxay hoos tagtaa ama madax u ah ama nidaamkeeda weyn hayo militariga iyo commandosta Mareykanka. muuqaalkeena daawadayaal waxaan ku tafatiri doonaa ama aan ku falqeyn doonaa ciidanka lagu magacaabo FBI-da Mareykanka. halqabsigeena ayaa ah tabin iyo tusaale iyo tusmo xooggan ayaad ka helaysaa channelkan. waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doonto insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدي aad tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato channelka taawo calaamada guduud ee subscribe-ta sidoo kale taawo calaamada like-ta. inaad muuqaalka like saarto waxay naga caawinaysaa inuu asxaab fara badan gaaro. aan u gudgalno muuqaalkeena. FBI waa xubinta ugu sareyso aana xubinta sirdoonka taas oo qayb ka qaadato xasilada amniga waana beesha sirdoonka ee Mareykanka. dhammaan ciidamada madaxda ee FBI-ga waxaa madax u ah ciidamada militariga ee Mareykanka. waa ciidan hubeysan kana diyaarsan dhan kasta oo qalab ciidan ah waana ciidan sidoo kale tababaran waxayna xirfad u leeyihiin howlgallada khaaska. waxaa si guud u agaasimo dhammaan sirdoonka iyo waaxaha qaranka. waxay ka howlgashaa hay-adaha dambi baarista sirdoonka iyo howlgallada ku saabsan shirqoolada iyo waxyaabaha lama leegayo. FBI-da waxay awood u leedahay in ay xaliso dambiye gaarayo ilaa 200 oo nooc oo dambi ah. FBI-da waxaa la aasaasay 26 Luulyo 1908. miisaaniyadii dhaqaalaha ku baxda ciidankani waxay gaaraysaa 9 bilyan 748 milyan oo dollar. qaab dhismeedka ciidanka iyo maamul madaxeedka iyo miisaaniyadda guud ee ciidanka waxaa iska leh Mareykanka. inkastoo FBI-da ay tahay urur caalami ah balse sidoo kale waxaa jiro urur kale hoos imaado iyagana caalami ah waxaana ururadaas ka mid ah CIA-da Mareykanka. waa urur sidoo kale sirdoon ah wuxuuna qabtaa waxyaabaha uu qabtan waxaa ka mid ah musuqmaasuqa falalka dilka iyo burcadbadeeda. magacyada ururada waxaa ugu caansan magac hadda aan sheegayno ee ah FBI. sidoo kale waxaa jiri jiray magacyo fara badan oo la soo dhaafay waxaana ka mid ah BOI ama BI. inkastoo dad badan oo ka mid FBI-da ay shaqadooda tahay mid gaar ah haddana waxay leeyihiin howlgallo loogu talagalay waxaana ka mid ah in ay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo ilaalinta qaranka. waxaa jiraan ururo kala duwan oo hoos imaado FBI-da sidoo kale ka qayb qaataan in ay sugaan amniga waana ciidan si gaar ah u tababaran waxaana ka mid ah ciidanka Ingiriiska ee lagu magacaabo M15 iyo kuwa Ruushka ee lagu magacaabo FSB. FBI-da waa maamulka koowaad ee dhanka xafiisyada iyo dambi baarista waxaana xil ka saaran 56 xafiis oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. waxaa jiraan in ka badan 400 oo hay-ado oo ku xiran FBI-da. FBI-da waxay isugu jiraan xubno fara badan iyo ciidamo kala duwan. sidoo kale waxaa ka mid ah ciidanka qalabka sido kuwa sirdoonka iyo kuwa maamul hoosaadka leh ciidamada qaranka kuwa booliiska iyo kuwa militariga. shaqada ciidankan iyo howlgalladeedu waa mid xadidan iyadoo ay ka qayb qaadato shaqooyinka waaweyn sida shaqooyinka safaaradaha iyo ilaalinta goobaha duwaliga iyo kuwa ajaanibta ah. haddii aan u gudubno magacyada maamulka guud ee kooxdani waxaa lagu magacaabaa Christopher. sidoo kale agaasimaha waxaa lagu magacaabaa Paul Abbott. madaxa guud ee shaqada waxaa lagu magacaabaa sidoo kale Corey Ellis. waxaa jiraan ururo fara badan oo shaqo ku leh xagga dambi baarista
balse FBI-da waa ururka ugu caansan xagga dambi baarista, waana ciidan isku dhafan oo kala duwan, sidoo kale tababar qaas leh, waxaana mideeya caalankooda iyo shaqada maamul ee ka dhexeysa dhammaantooda. haatan waxaan soo gaarnay guntii gunaanadka barnaamijka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.